dibadbaxyo ba'an ayaa ruuxay caasimadda dalkaasi Maali ee Bamako. dibadbaxayaasha ayaa in dhawaalaba doonayay inuu jagada iska casilo madaxweynaha waddankaasi madaxweyne Ibrahim Abubakar Keita oo isagu ah madaxweyne talada haystay muddo dheer isla markaana gabi ahaanba ay u muuqato inay ka wareegtay kalsoonida shacabku. dadka dibadbaxaya ayaa u bixiyay dibadbaxan dhaqdhaqaaqa 5 Juun ayaa ugu baaqay madaxweyne Ibrahim Abubakar Keita inuu xilka baneeyo isla markaana uu meesha u baneeyo hogaamiyaha dadka oo ah nin isagu aad ay u taageersan mujtamaca waddankaasi isla markaana ka diinta islaamka oo lagu magacaabo Sheikh Maxamuud Diako. waddankan ku yaala waqooyiga Afrika ayaa in dhawaalaba daris la noqday qulqulatooyin fara badan oo waxa jira kooxo ku xidhan Al-Qaacida iyo ururkii isugu yeeray ururka dawladda islaamka ee ISIS oo iyagu ka fuliya howlgallo fara badan isla markaana bartilmaameedsada dadka u dhashay wadamada reer galbeedka iyo gabi ahaanba dadka haysta diinta Masiixiga. waddanka Burkina Faso waddanka Mali ayaa xuduud la leh dalka Burkina Faso, Mauritania, Niger iyo dalka Algeria iyo kuwa kale oo iyaga la sheegay inay markaasi xuduudoodu ay tahay xuduud aan saameyn ku lahayn. dalka Mali oo isagu dadkiisa lagu qiyaaso 19 milyan hal oo ah dad iyagu markaasi u badan dad muslimiina ayaa iyagu saboolnimo ay daashatay isla markaana la nool duruufo ba'an oo dhanka nolosha ah. waddankan ku yaala waqooyiga Afrika ee Mali oo lagaga hadlo luqadda Faransiiska isla markaana dhulka